بسم الله الرحمن الرحيم أنا قوم مقعي جاي إدريس حاشي درار كشرحان قبل كأوضل وشرحان قرها وكيلة جمهورية الصومال الآن doorashada inagu soo food leh dhici doonta hadii Ilaahay yiraahdo 31 bisha May gobolkaas aan ka sharaxanahay xisbiga wadani baan ka sharaxanahay astaantaydu waa astaanta cadceeda aqoontayda jaamacadda masterta waxaan qaatay jaamacadda Amuud kulliyadda isbedelka deegaanka isbedelka cimilada iyo badqabka deegaanka ama climate change and environmental sustainability jaamacadda digriga waxaan ka qaatay jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa kulliyadda dhaqaalaha ayaan ka baxay ama economics-ka waxaan ku dhashay tuulo la yiraahdo Sheekh Awaare oo ka tirsan degmada Saylac gobolka Salel halkaas aan waxbarashadeedii hoose waxaan ku qaatay magaalada Boorame aqoontayda way aragnimo waxay u badnayd macallinnimo inta badan waxaan ku shaqeynay macallin baan ahaa haddii aan u gudbo ujeedada أنا شرحنا هاي عن ربو إن عن حل بان النقطة وحويه وحن سكو أركع وقت قلت شوقه إن تاي وقتي هنو أديك لها بالشديدة وقت كهبون إن أنو أديكو مجتمع عيقة وأنو أركمات إن باهي بدن يضروف بدن أي جرتو ديجانا ده كسوة هذا حقيقة دي وديجانا ما تقبهن مثلا دبا إن هلان صدق عندما إن لو شقيو حول كرنما إن لو شقيو وفنان يكرتي عدالة إن لو شقيو waxaan isku arkaa inaan haynin dhalinyaro oo matali kara mujtamaciisa waxaan ka codsan lahaa maadaama oo maanta ay tahay maalin taariikhi ah guud ahaan shacabka reer Soomaaliland taariikhi u ah inay isbedelka maanta ay nala xaqiijiyaan oo maanta waxay haystaan fursad ay ku doortaan cidii matali lahayd qof si dhab u matala oo siyaasadana ay leeyihiin ee ay dawlad ka leeyihiin matali kara inay doortaan waxaan jecelahay amaanuhan isku arkaa inaan haynin qaadi kara hanka iyo himilada ummadayda gobolka Awdal ka soo jeedo iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland ee boqolkiiba 80 gaar ahaan dadka aan weedoodu gaari karin meelaha loo baahan yahay iyo gorayaasha looga baahan yahay dawladda aan gaari karin inaan gaarsiiyo oo aan isku arkaa qof kartida leh halka gaarsiin kara inay maanta fursadaasi iyaguna ay igu garab galaan aniguna haduu Ilaahay yiraahdo 5 sano ee aan joogayo meesha waxa aan rumaysanahay ama aan ku ballan qaadaya inaan si fiican oo qiimo leh oo sharaf leh u matali doono bulshadayda waxaan leeyahay sharaftaydu waa sharaftiina wanaagiinuna waa wanaagayga hadii maanta aad ii heelisaan oo aad iigu heelisaan inaan gaari karo inaan maxaan ku hawsha xaqiijin karo aniguna bari waan idin heelinaya guntiya gabagabadii mar labaad aniga oo magacaygu yahay Idris Xaashi Dhalaal astaantaydu ay tahay cadceeda waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina iigu heelisaan maalinta 31 May iftiin iyo qurux badan ee dunida ay u soo baxdo aad baad u mahadsantihiin sharaf baadin haya qiimo badan agteeda ku leedihiin waxaan ka rajaynayaa inaad si fiican maalintaas ay igu heelin doontiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته